السلام عليكم كلنتو wanaagsan xaaladii gobolka bariga dhexe oo saakay la fajabintii ugu dambeysay maraysa barnaamijka qodobadan idinkugu haya saakay waxa kamid ah madaxweyne Donald Trump oo ay ka taagan tahay yaa laytani maxaa dagaalkan iyo qasaarahan kaligeyga ugu ekeeyay maanto Arbaca iyo waxa la filayaa in uu jeediyo khudbad ku saabsan xaaladda gobolka bariga dhexe iyadoo la filayo in madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqo in dagaalka gobolka bariga dhexe Mareykanka uu ka baxay sidaas oo kale barnaamijka qodobadan idinkugu haya waxa kamid ah reer Yurub oo Sultan Trump u deeriyay walibana Donald Trump uu qaadan laasan yahay hadalkii ka soo yeeray Talyaaniga Spain caasimadda Tehran oo qaraxyo xoogan laga maqlayo xuutiga oo koonfurta gumeystaha Israel duqeymo xoogan ka geystay garoomada diyaaradaha Kuwait iyo Baghdad oo saakay gubanaya xaaladda gobolka bariga dhexe guud ahaan oo saakay bariga dhexe maraysa intaas in ka badan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inta aan barnaamijkan ku guda jiro ka dhigo wehelkaaga idaacadda Buluxubay hagaag isku soo noqosho wanaagsan dagaalka gobolka bariga dhexe waxa uu galay muddo 2 bil ah waa muddo 33 cisho ah saakay ornimadii hore guud ahaanba gobolka bariga dhexe waxay maraysaa xaaladii la fajabinta ugu dambeysay Tehran iyo Tel Aviv duqeymo xoogan ay isweydaarsanayaan waliba Tel Aviv saakay duqeymaheedii ay si saddex jibaartay iyadoo guud ahaanba caasimadda wadankaasi Iran ee Tehran iyo hareeraheeda duqeymo xoogan ka geysanaysa Israel saakay cabsi xoogan ayaa haysa oo waxay ka cabsi qabtaa in madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqo in dagaalka gobolka bariga dhexe Mareykanka uu ka baxay ama uu istaajinayo maadaama oo faarkii Netanyahu uu aad u ogyahay isbedbedelka badan madaxweyne Donald Trump haddaba barnaamijkii sidaan idinkugu sheegay madaxweyne Donald Trump ayaa waxay ka maraysaa yaa laytani maxaa dagaalkan kaligeyga igu ekeeyay iyadoo xulafadii yani Mareykanka guud ahaanba ay diideen in dagaalkan qayb ay ka soo noqdaan marka run ahaantii madaxweyne Donald Trump waxaa la soo warinayaa maanto Arbaca oo taariikhda ay ku beegan tahay 1 bisha Afraad 2026 in uu jeediyo khudbad aad u dheer oo ku saabsan xaaladda gobolka bariga dhexe guud ahaanba amniga adduunka oo dhan madaxweyne Donald Trump sida ay falanqeynayaan dadka arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin in ay suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo dagaalka gobolka bariga dhexe in uu joojiyo ama uu soo gabagabeeyo kadib markii ay u cadaatay madax adeega Iran waxyaabaha laga dalbaday inaysan marnaba suurtagal ka ahayn sidaasi oo kalena Mareykanka hadii ciidamadiisa infantry uu geliyo wadankaas Iran in iyaga oo sanduuqyo ku jira sidii Afghanistan iyo Iraq ba dhacday in dib loo soo celin doono arinkan oo culays ku noqon doonta wasaaradda maaliyadda ee wadankaas Mareykanka oo yani loo soo jari doono rasiidi aad u waaweyn ama warqado qaansheeg ah oo yani lagu sheegayo ciidamo badan oo Mareykanka halkaas ku geeriyoodeen dhaqaale badan inuu ugu baxay Mareykanka sidaa darteed marka Mareykanka waxa yani suurtagal ayaa la leeyahay ama madaxweyne Donald Trump in maanta uu ku dhawaaqo dagaalkan in la soo afjaray waana arinta keenaysa in Israel saakay duqeymo xoogan ay ka geysato wadankaas Iran gaar ahaan caasimadda Tehran arinkan wixii ka soo kordhana halka ayaan kugu soo gudbin doonaa biidnillah dhanka kale madaxweyne Donald Trump waxa uu ka niyad jabay dalabkii iyo gurmadkii uu ka dalbaday reer NATO arinka oo waliba arin ka duwan uu kala kulmay gaar ahaan Talyaaniga Spain iyo Faransiiska madaxweyne Donald Trump maalinkii shalay isagoo careysan ayuu page-kiisa loo yaqaan social truth-ka waxa uu soo dhigay reer Yurub in shidaalkooda ay xoog ugu soo qaataan wadamada khaliijka sidaasi oo kale madaxweyne Donald Trump waxa uu aad ugu carooday talaabadii ay qaaday Faransiiska maalinkii Talaadada oo ay diiday diyaarad hub u waday Israel in hawadoodu ay marto sidaasi oo kale madaxweyne Donald Trump waxa uu ka qaracmay hadalkii ka soo yeeray Spain wasiirka gaashaandhigga wadankaasi Spain ayaa waxa uu yiri inagu ma nihin dad yani lecture ama cashar loo jeedin karo inaga Spain hadii aynu nahay waxaan si qayaxan u diidnay in Mareykanka saldhigeeda uu ku leeyahay wadankaas Spain duulaan uu ugu qaado wadankaas Iran arinkaas oo qaracan weyn ku noqotay tii oo ay jirtay ayuu madaxweyne Donald Trump haddana waxa qaracan weyn ku sii noqotay Talyaaniga uu diiday in diyaarad Mareykan ah oo yani kuwa wax duqeeya ah in si degdeg ay u fadhiisato garoon ku yaala Sicily
arrinkaas oo run ahaantii madaxweyne Donald Trump uu qaadan waayay. Talyaaniga waxay Mareykanka u diideen saldhig uu ku leeyahay Sicily inuu u adeegsado weerar loogu qaado waddankaas Iran. runtii saldhigan waxaa la soo warinayaa in kontameeyadii Talyaaniga uu siiyay, laakiin sababta uu yani saldhigan u siiyay ay tahay in tababaro oo kaliya yani Mareykanka uu ku sameeyo, marnaba heshiiska uusan ku jirin in Mareykanka diyaaradihiisa ay ka kacaan weerar ay ugu qaadaan dal kale iyadoo aan baarlamaanka Talyaaniga ogolaasho laga helin. marka Mareykanka wuxuu isku dayay maalinkii shalay iyo maalmihii ugu dambeeyay in saldhigaasi weerar ugu qaado waddankaas Iran. arrinkaas oo Talyaaniga ay si qayaxan u diideen oo ay yiraahdeen saldhigan weerar uguma qaadi kartid waddankaas Iran. arrinkan qaracan weyn ay ku noqotay. sidaasi oo kalena waxa uu qaracan weyn madaxweyne Donald Trump ka qaaday hadalladii isdaba joogga ah ee ka soo yeerayay waddankaas Spain, ra'iisul wasaaraha Spain iyo sidaas oo kale wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, kuwaas oo dhammaantood Mareykanka u diiday in saldhigyada Mareykanka gobolka uu ku leeyahay in weerar looga qaado waddankaas Iran. sidaasi oo kale madaxweyne Donald Trump waxa uu yani lama filaan ku noqotay in boqortooyada Ingiriiska oo dhowr jeer uu ugu gacan haatiyay in marinka Hormuz ay qayb ka noqdaan furitaankiisa. dhanka kale koonfurta gumaystaha Israa'iil duqeymo xoogan ayay Xuutiyiinta ay ka geysteen. waxaa la soo warinayaa in duqeymaha gobolka Saaki guud ahaanba ka dhacaya in ay laga faa'iideysanayo inta madaxweyne Donald Trump khudbadda uusan jeedin. waxaa la soo warinayaa garoomada diyaaradaha ee Kuwait iyo sidaasi oo kale Baghdad inay gubanayaan kadib markii tahliisha Tehran ay gaartay. Iran ayaa Saaki waxay ku weerartay garoomada caalamiga ah ee waddankaas Kuwait iyo sidaas oo kale waddankaas Iraq diyaaradaha droniska, kuwaas oo la soo warinayo in ay ku dhaxnasteen garoomadaasi diyaaradaha dhexdooda. marka run ahaantii xaaladda guud ahaanba Saaki waxaa jirta duqeymo aad u xoogan. xaaladii la fajabinta ayaa yani waxay maraysaa daqiiqadihii ugu dambeeyay iyadoo run ahaantii sidaasi oo kale Tehran duqeymo xoogan ay ka geysanayso caasimadda gumaystaha Israa'iil. sidaasi oo kalena Israa'iil Saaki iyadana duqeymihii ay ka waday waddankaas Lubnaan ay sii saddex jibaarayso. welibana wasaaradooda gumaystaha Israa'iil ee gaashaandhigga ay sheegtay in ciidamada infantryga Israa'iil ay ku sii sugnaan doonaan halka ay maanta ay ku sugan yihiin. marka run ahaantii Saaki xaaladii la fajabinta waxaa moodaa in ay sii saddex jibaarayaan labada dhinac. wixii soo kordhana halkaan idinkugu soo gudbin doonaa biidnillah. waalid waxaan ku hayaa bushaaro qaaliya haddii aad awlaad leedahay isla markaana Allah kugu arsaaqay oo doonaysa intay yaryar yihiin inaad Allah ku xidho ood barto barashada diinteena Islaamka. waxaan ku hayaa dugsi ay wax ka dhigaan macallimiin ka haqabtiraya in awlaadaada diinta Islaamka ku barbaariyaan haddii ay qurbaha ku nool yihiin muddo aad u kooban ku xifdinta Quraanka Kariimka, barahigaada afka Carabida, bara asaasiyaadka diiniga ay ka mid tahay barashada tafsiirka Quraanka Kariimka, barashada caqiidada Islaamka, barashada axaadiista rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. waxay sidoo kale ubadka ay barayaan barashada iyo qorista afkeena Soomaaliga. waalid ka faa'iideyso fursadan adiga ilmahaaga yarba kow ka noqda ardayda ugu horeeya iska diiwaangeliya dugsiga Nuurul Huda Qur'aan online oo bishan qaadanaya arday kooban. wixii faahfaahin waxaad ka weydiinaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda. ballanteenu waa dugsiga Nuurul Huda Qur'aan online.